waxaan qabaa bulshadu waxay la xisaabtami kartaa marka ay fahmayso ama ay garanayso waxay xaq u leedahay haddii aanan garanayn waxaan xaq ugu leeyahay konsalka ama golaha deegaanka barameed maxaan kula xisaabtamayaa ama ula tegayaa sidii uu maxamuud ka dhawaajiyay wax qabadka ka dhacaya dawladda hoose waxa loo haystaa waxay intay keento la qaybinayo yani qayb inta la eg baan ka heli karaa taas baa waxay noqotay waxa ugu weyn oo qof kasta oo baran jooga maanta uu ka fakaro laakiin baahiyu aad bay u fara badan yihiin baahi dawlad hoose oo yani maanta aan oran karno waan helaa ma jirto waxa ugu yar waxa weeyaan waa qashinka magaalada laga guro taasna guri walba lacag baa laga qaadaa maaha mid si free ah looga qaado ama looga guro marka bulshadu horta waa inay fahantaa maxaan xaq ugu leeyahay dawladda hoose inaan ka helo waxaad xaq ugu leedahay sidii maxamuud ka dhawaajiyay amni waxaad xaq ugu leedahay oo amnigaaga in la kafaalo qaado oo aad nabadgelyo ku socoto oo boolis ku shaqeynaya aad heshid waxa ka dambeyn kara dawladda hoose waxaad xaq ugu leedahay in aad biyo heshid waxaad xaq ugu leedahay inaad nadaafad heshid waxaad xaq ugu leedahay inaad iftiin heshid oo solar lagu xiro waxa xaq ugu leedahay in wadooyin fiican oo yani iska daa qof gawaaridi baan socon karayn oo meesha inay wada tahay iyo in kale aad isweydiinaysaa marka maxaad ka malaynaysaa qof waayeela ama qof handicap oo lixaadkiisu aanu dhamaystirayn waqtigan oo kale xilli roobaadyaa lagu jiraa meel walba biyaha fadhiya cudurrada dilaacaya meelay dawladii hoose maxaynu uga baahannahay in xilliyadaas oo kale meelaha ay biyuhu fadhiisanayaan dawladda hoose ay gargaar degdega samayso oo ay buuxiso cudurrada dilaacaya in waxyaabaha intaas oo dhan waxa ka sii muhiimsan in bulshadu ay hesho wacyigelin oo dawladda hoose ay wacyigelin samayso wax kasta xaalad kasta oo markaa jirta in cidda wacyigelinaysa oo magaalada ogeysiinaysa ay ahaato dawladda hoose laakiin nasiib wanaag waxaan rajayn doonaa in dhowr sano kadib aynu tan kasii gudbi doono oo maantaba intani ay tahay isbedel horle oo dhacay ayna tahay bulshadu inay ku baraarugto iyadu inay wax fahanto oo wax barato oo ogaato waxay xaq u leeyihiin taas unba wax lagu bedeli karaa anigu markaan xaqayga garanayo waan la xisaabtamaya qofka berito mas-uulka ii ah laakiin markii aanan garanaynba waxaan uga baahnahay aan iska dooranayo de markaas wax isbedelaya ma jirto magaaladuna sideedaas bay ahaan doontaa